munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo musharaxa kamida musharaxiinta urur-siyaasadeedka waddan uga sharax golayaasha deegaanka ee degmada Gabiley Sacad Maxamuud Cumar Sacad Qodaaljoog ayaa maanta lagu qabtay hotel askar ee magaalada Gabiley munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen afayeenka urur-siyaasadeedka waddani Ibrahim Mahdi Buuba gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee urur-siyaasadeedkaasi Axmed Muumin Zaid Cabdilaahi Siciid Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee urur-siyaasadeedka waddani Cismaan Afgaab oo ka tirsan urur-siyaasadeedka waddani iyo waliba mas'uuliyiinta urur-siyaasadeedka waddani ee gobolka Gabiley waxaana ku horeen munaasabadaasi hadallo kooban ka jeediyey isla markaasina ka hadlay musharaxa urur-siyaasadeedka waddani uga sharaxan golayaasha deegaanka Gabiley Sacad Maxamuud Cumar Sacad Gadle oo tilmaamay ahmiyadda ay maanta leedahay xafladani lagu taageerayo taasoo ka maarnaqay mas'uuliyiinta urur-siyaasadeedka waddani ee taageerada laxaadka la soo garab istaagay isla markaasina ka soo qayb galay isagoo tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu ku tartamo jagada golayaasha deegaanka ee Gabiley taasoo uu dadweynaha iyo taageerayaashiisuba diyaar u yihiin inay soo saaraan markastaba ay ugu heelayeen in ay isbeddelka iyagu ay hormood ka noqdaan bal hadda aan mar kale ku noqdo bal in yaroo aan ugu talagal sidoo kale waxa iyaguna halkaasi yaaday Ibrahim Mahdi Buuba Cismaan Afmadow iyaguna sheegay inay soo dhaweynayeen ka urur-siyaasadeed ahaan mas'uulkani maanta ka sharaxan golayaasha deegaanka ee degmada Gabiley kuna tilmaamay mid qiimeynteeda iyo qadarinteeda leh taasoo ay ku tilmaameen inuu yahay xubin ay u soo xuleen dadweynaha reer Gabiley sidoo kale iyaguna waxa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey Cabdilaahi Siciid Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee urur-siyaasadeedka waddani iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan urur-siyaasadeedka waddani oo iyaguna dhammaantoodba soo dhaweeyey musharaxan golaha deegaanka Gabiley uga sharaxan urur-siyaasadeedkani waddani Axmed Muumin Zaid oo ka koobaad ee urur-siyaasadeedka waddani oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sidoo kale tilmaamay ahmiyadda ay maanta xafladani ay Gabiley ku leedahay taasoo u sheegeen guud ahaanba ay ka soo qayb galeen munaasabadani maanta lagu shaacinayay intani uga sharaxan urur-siyaasadeedka waddani gobolka Gabiley ee golayaasha deegaanka kaasoo uu tilmaamay inay hiir iyo hobol la garab taagan yihiin munaasabadan ayaa musharaxii koobaad ee urur-siyaasadeedka waddani lagu taageerayo lagu qabto gobolka Gabiley. Waa Nimcaan Ibraahim TV qaranka Gabiley.